kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada arrin muhiim ah. Mowduucayna maanta waa arrimaha lamaanaha u sahlaya in ay weligood wada joogaan. Haddii aad lamaana tihiin, muuqaalkan si gooni ah ayuu idin anfacayaa ee saaxiibayaal si quman u wada daawada. Soo dhawaada saaxiibayaal. Xitaa haddii aad ugu yaraan 3 ka mid ah ku aragtaan noloshiina, waxaad ku socotaan wadada saxda ah. Waayahay aynu bilowno. In nolol qoys la yagleelo ma aha wax sahlan marka la eego caqabadaha idin soo wajihi kara iyo sida ay muhiimka u tahay inaad xiriirkiina ilaalisaan. Dad badan ayaa ku guuleystay imtixaankan oo noloshooda ku dhameystira farxadda iyo reereyn, laakiin nasiib darro waxaa jira kuwa kale oo tallaabada la rogmato ugu dambeyntiina kala taga. Xitaa haddii aad ugu yaraan 3 ka mid ah arrimahan aan soo wadno aragtiin, waxaad ku socotaan wadada saxda ah. 1. Waan ku jecelahay. Qofka aad nolosha isla wadaagaysaan ama xiriirka leedihiin ku dheh waan ku jecelahay maalin kasta ugu yaraan hal mar. 2. Ka hortagga masayrka. Kalsoonidu waa tiirarka ugu weyn ee ku dhisan yahay xiriirka lamaanaha. Haddii ay meesha ka baxdaan, xiriirkaas wuxuu qarka u saaran yahay inuu burburo. Marka ay kalsoonidu daciifto, waxaa meesha soo galay masayr, kaas oo ah in qofka aad isjeceshihiin uu kaaga shakiyo inaad qof kale dhankiisa u janjeerto. Shaqada guriga. Ma habboona in hawsha guriga lagu sii daayo hal qof oo kaliya. Sidoo kalena hadiyado yaryar ayaa mar walba in la isu keeno muhiim ah. Sidoo kale cuntada ayaa muhiim ah. Madax bannaanida iyo sidoo kale damaashaadka ayaa ka mid ah waxyaabaha sahli kara in lamaanayaashu mar walba ay wada joogaan. Daawadayaal, sheekadeena maanta waa inaga intaa. Arrimaha lamaanaha u sahlaya inay weligood wada joogaan ayaynu ka hadalnaan. Mahadsanidin.